وارون سياسة إسرائيل إلى هاي جديد وعلى هاي مرة قاركود ضد كان طبيعة إلهي وموقف البليه قف بار كان ضد سوق عطوا وماشي نسوي استاذ درنك كتجاي وحي أو القرية هاي ومركب بناك جوب إنه قرية كجرتي أو بار كان مقول سوي استاذ أنا قرية كذا إنه كإمارس مركب ضد كاس حوجها وحاله ما psychological counseling وحبي وباهي هنا هلا الدواء يلا ما ديالنا طلعت ماشي لو كيدي وحي دواء ماشي لو كيدي او اي leedahay koronto oo leedahay bartaas caafimaad oo caawa hadii gabar fooranaysa ay timaado maxaa wax loogu qaban karo intaas mar kale mashruuc weyn ay dawladdu ay wadaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaalo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeegga caafimaadka meelaha laga helayo dawladdu intii karaankeeda ama dhaqaale ayadu ay canshuurteeda ka bixiso ama magaca dawladnimada ku raadiso ha ku keentay ma aha public bas dawladda private waa ka shaqeysaa oo hadda shirkadaha مثلا adeegga korontada magaalada Muqdisho bixiyo kale adeeg fiican ay bixiyaan adeeg loo baahan yahay bixiyaan bas waxoogaa yar qaali waaye dadka caadiga waa ku qaali waxyar meesha ay gaareen waa dhimeen meesha ay joogaan kama sii dhimi karaan dawladdu kabay u raadisay maalgelin caalami ah in loo helo oo aan deyn ahayn oo deeq ah oo qalab dheeriya iyo awood dheeriya lagu siiyo si meeshii ay qiimaha ay ka hoos mari waayeen ay uga hoos mariyaan hadda oo loo helo korontada hadda aan haysanaa waa koronto isticmaal iftiin maxaan ku raadayay sidaan oo kale qaboojin isbitaalada guryaha waxa waa noo anfacda laakiin koronto warshada kicin karta ma haysan waxaan u baahanahay waa koronto warshada kicin karta oo daari karta warshad kicisa oo qiimo macquula ku kiciso warshadu waxay soo saaraysay ay suuqa ay ka noqon karaan competitive kuwa tartami kara ay ka noqon karaan aanay ahayn kuwa qaali oo aan laga bixi karin waxaa soo dhan iyo maxaan ku raadayay afkaartaas waa weyn ayaa dawladdu ay ka shaqeysaa waxaan rabaa mar kale inaan u hambaliyeeyo nimanka dhaqaatiirta dhalinyarada ah isbitaal yar oo la furaayo waaye maxaa waay madaxweynuhu maxaa u tagaysaa iyo wax badana yaa dadka ay yiraahdaan muhiimadda isbitaalka ma yara horta waa isbitaal weyn $12 milyan oo investment ah iyo biriyo maxaan ku raadayay $30 milyan oo kale si gal rabo iyo waxa adeega aan jirinay la soo kordhay horta ma yar waa yani project mega projects aan ka hadli jiray oo kamid yahay ma yar laakiin waxa soo dhan aniga hal mid iga sii muhiimsan dad dhalinyaro ah sidii Dr. Maxamed Saaqo kale oo Soomaali ah oo aad u dhalinyaro inay la yimaadaan fikirka oo fikirkii waliba inta qaataan Nairobi aan ka furan isbitaalka aanay dhihin isbitaal badan Soomaaliyeed Nairobi ka furan real estate badan Soomaaliyeed daar dheer qurxana ya Nairobi ku yaal waa fiican yihiin mana ka dayna dal waaye Kenya waagi aan meelan aadna aan weyne aan ku cararnay way mudan yihiin laakiin maanta waxa uga baahi badan Soomaaliya hadii isbitaal la furayo hadii daar la dhisay hadii maxaa intaba Soomaaliya ugu sii baahi badan marka muhiimadda soo jiidatay inta ay keentay waa dhalinyarada iyo initiative-ka ay la yimaadeen waxa ay sameeyaan materialka ma aha shalay iyo daraar waxaan joogay shirkii African Union ka Addis Ababa Economic Commission of Africa ninka madaxda ka ah soo raadiya ay yimiday Soomaaliya inaan imaadaan raba Soomaalida wax la qaban maxaa la qaban kartiin aan dhahay adinka wuxuu yiri anaga $10 bilyan oo Afrika u hayna oo aan dawladaha wax kula qaban karno Soomaaliya meelaha ugu mudan ka mid tahay waanad kasbateen oo the first two 5-star hotels yaa dhiso haysan yani example ay soo qaatay labadii 5-star hotel ugu horeysa dalka ka dhaqan galayso waxa muuqato kuwa kale inuu soo saaray bari markaan airport ka dhagax dhigno oo dekada dhagax dhigno oo free zone ka aan dhagax dhignaane what will happen maxaa dhacayo isbitaalkan maanta mar la launch kara marka la maqlo isbitaal intaasna qaban kara barina hamigiisu intaas yani profitka faa'iidada dadka iskale iyo dadka adeegan isticmaalaya way ka faa'iideen bas ma magaca iyo image ka soo ogaada adduunyadana image perception ka adduunyadu wax weyn u ka yahay in wax lagu bido inaad wanaagsan tahay in lagu qiro ogow
cadow kuu qiri maayo inaad wanaagsan tahay ilaa uu ku khasboonaado inuu qiro oo au ka leexleexan waayo kula soo dooran maayo haddii la soo Soomaaliya maanta marka magaca iyo sumcadda ay leedahay ee ay u socotahay waxa waaye wanaagga dalkan ka dhacay oo private-ka iyo dadka Soomaaliyeed ay u istaageen dalkoodii wax badanaa noo dhiman laakiin kaas waaye waxa keenay in Soomaaliya la aamino dadkuna dad fiican oo leh muxuu ahay leh creativity hal door leh waaye dalkuna waa soo socdaa waa soo kabanaya fursadaha ka soo muuqda fursadaha ayaan ku gafin qof walba intuu is yiraahdo uu soo hamiya caalamku inuu na aqbalo oo na la yiraahdo imaada waxaad meelaha shal ka maqnaadeen oo dhan imaada UN Security Council ka imaada maxaan ku yiraahdaa East Africa imaada waxay idin dhibayo dabarada idin ku xirxirnaayo una qabatayn loo deyn loo jinle waa la ka furfuray war socda in la yiraahdo yani waa shaqo aan qabsanay shalana lama dhaheeynin dadkeena shaqo ay qabteen waa iyo dawladeena shaqo ay qabatay waa aad iyo aad ma santiin mar kale isbitaalka hodan iyo dhalinyarada keentay iyo kuwa maalgeli intaba waa u hambalyeynaya waana u mahad celinaya marka waxaan rabaa ku kalsoonaada ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto xoolaheena dawladdu way difaacaysaa way ilaalinaysaa hal basaanan dawladdu aan ha ka filina naxariis dawladdu waa tabar daran tahay tabara meesha dhigtay waa gooni canshuurta dawladda naxariis la suguma falo hal iska bixiyo canshuurta hebel iyo heblaayo cashuura loo haystaa hadaa maqashaan ogaada ayagaa gardara dawladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhagan yahay arkaysaan dawladda ayagaa ka gardara wareebaa gardaranta cashuurta iska bixa la yiraahdo amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dawladda waa adduunyada ma amnigu nuguma maalgeliso waa jirtaa missionskaas jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan dhar cad ama booliiska ama militariga ay socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiisa ilaalinaya ee kaamirada maxaan ku yiraahdaa tuuga inuu tilmaanto argagixisada ee la qarxinaya ilaalinaya ag taagan 24 saac waxa uu ku nool yahay guriga doonta bakeeri biyo cabaay waa cashuurta lacagta laga qaado dadka Soomaaliyeed waxa fiican yeeyna jeclaanin kaliya waxa fiican qiimo loo bixiyay leeyahay qiimaha loo bixiyana waa canshuur wax kale oo badan jiri karo dawladda uga gardaranto iman karo laakiin markay timaado cashuurti ma dhiibin qofka gardaran mar walba qofka gardaran cashuurta la iska bixiyo insha Allah taala dawladdu wixii kale ama ku gardaran tahay ama ay ku gaabis ku tahayna hal